business transaction in badan waxaynu maqalay intaynu chapterkan ee chapteradii ku horeeyay dhigaynay transaction ama business transaction una aad ugu badan yahay course-ka inta dhigaynaa hadaba waxa muhiim ah inaynu isla fahanno business transaction qodobadan afarta xag hoose ka muuqda waxay noo qeexayaan business transaction waxa loo yaqaan qodobka wuxuu leeyahay business transaction waxa weeye dhacdo kasta oo dhaqaale oo saameyn ku leh ganacsigaaga sidoo kale qodobka labaadna wuxuu leeyahay business transaction waxa weeye sidoo kale wuxuu u baahan yahay exchange with an outside entity waa in wax la isku bedesho adigoo waxa la isku bedelanayo ay yihiin wax ka baxsan ganacsigaaga yacni meherad kale wax ka soo iibsanaya lacag iyo alaab isku bedelanaya laba asad kale bedelanaya iyo wixii la mid ah sidoo kale business transaction waxa lagu yaqaanaa must be able to measure this exchange in dollars waa in waxa la kala bedesho lagu cabiri karaa dollar yani lacag ahaan waa inuu noqon karaa sidoo kale transactionada oo dhan ama transaction kasta oo dhaca waxa uu saameyn ku yahay equation-keeni isagoo u maraya accounts cayiman way business transaction zero fraud of Soomaaliya ku nahna waa meheradaada ama ganacsigaaga wax kasta oo la xiriira oo ku dhaca oo ay kamid tahay haddii aad wax soo iibsanaysid sidoo kale haddii aad wax iibinaysid haddii aad kharash iska bixinaysid haddii aad shaqaalahaaga mushaar siinaysid haddii aad guri iibsanaysid meheradaada ku shaqaynayso haddii alaab cusub ama qalab xafiis soo iibsanaysid dhammaan waxyaalahaas iyo wixii kasta ee ganacsigaaga saameyn ku leh ayaa waxa loo yaqaanaa business transaction account eraygan account isna sidoo kale uu ku badan yahay financial accounting ama course-kan aynu barayno accounting-kana waxaynu ku qeexi karnaa waa separate record waxa weeye meel gaar ah oo wax lagu diiwaangeliyo diiwaangelintaas shayga la diiwaangelinayo oo saameyn ku yeelanaya asset-kaaga oo hantida ama liability-gaaga ama ownership-gaaga of business-ka ganacsigaas isna sidoo kale waxay la mid tahay haddii kaba soo qaad kharash ay meheradaada gasho kirada oo kale leerka oo kale waa account gaar ah yani kirada dabka aad iska bixinaysid markasta account gaar ah baad u bixinaysaa account kaas oo la yiraahdo rent expense ama salary expense ama account receivable ama yani wax kasta cash waa account weeye wax kasta ganacsigaas ka dhacayo transaction account gaar u leeyahay taas baa loo yaqaanaa account way analyzing business transaction oo ah ciwaankeeni chapterkan in transactionka oo aynu soo sheegno dhacdooyin ganacsiga ka dhacaya sidee loo analyze gareeyaa sidee loo diiwaangeliyaa yani haddaba si aad u diiwaangelisid dhacdooyinka ka ganacsiga dhexdiisa ka dhacaya waxaad u baahan tahay inaad su'aalisid saddex su'aalood markaad su'aal kasta ka jawaabtid waxa ku sahlan si saxan oo dariiqo la hubo inaad kaga shaqeysid transaction-kaaga saddex su'aalood maxay yihiin question number 1 ka ugu horeysa waxa weeye inaad isweydiisid what happened maxaa dhacay yani waxba la iibsaday maadaama wax iibsaday inaad isweydiisid make certain you understand the event that has taken place waxaa muhiim ah marka ugu horeysa inaad fahantid dhacdada dhacday waxa ay tahay question number 2 question ka labaad ay isweydiinayso waxay tahay which accounts are affected accounts waxaan dhacdadan dhacday accountigeebay ama account-ka aan soo sheegnay account-keebay saameyn ku leedahay ma asset ba ma liability ba ma ownership ba okay identify the accounts that are affected so kale account-ka gaar ma cash ba ma waxay tahay baad ma kor ogaanaysaa iyo classify this account as liability or ownership guud ahaana groupkeema noqonaysa ma qaybta asset-ka dhacdana saameyn ku yeelanaysa ma liability-ga deynta mise ownership question number 3 waxay isweydiinaysaa how is the accounting equation affect sidee bay dhacdadan dhacday ganacsigaaga ay saameyn ugu yeelanaysaa accounting equation-kaaga yani mi kordhisa determine which accounts have increased or decreased dhacdee ama ganacsiga accounting-ka kordhay markii dhacdadan wax iibka ama wax la iibsaday ama wixii la wada dhaceen account-ka siyaaday ama yaraaday sidoo kale marka ugu dambaysa waxaad ogaanaysaa marka dhacdadaas diiwaan gelisid accounting equation-kaaga inuu yahay remain balance inuu weli yahay mid isla eg oo aan waxa asset ku jira iyo liability ownership waxa ku jira marka la isu geeyo
inay isku noqdaan same iyo kuwa isku mid ah saddexda question haddii aad isweydiisid waxaa ku sahlaanaysa inaad transaction kastoo ganacsiga dhexdiisa ka dhacay inaad si saxan aad u diiwaan gelisid